السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها iyo asxaabta ku xiran guud ahaan mareegtayda Mo Cabdi iyo kuwa markii ugu horeysayba meeshay arkay ama yimidba waan salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa asxaabtii hore ee hore ugu xirneed waxaan leeyahay mahadsanidin asxaabta cusubna waxaan leenahay dee gacmo furan ku soo dhawaada sida mowduuca ka muuqata waa Google xaar waa gundig waa bilow barnaamij aan ugu magac daray Mo Podcast ood ka heli doontaan ama aad kala socon doontaan haddii mowleedmo mareegtan magaceedu yahay Mo Cabdi Podcast ayaamaba waxaa laga yaabaa inay iska dansaneed waayahan dambe maqaayad baan u bixinay meelihii waxa lagu soo gudbin jiray waayahan dambe inay iska dansaneed halkaani oo aanan waqti u haynin ama aan waxba la soo gelin sidoo kale uu yahay kani hal video uu ka horeeyo marka loo fiiriyo guud ahaan waxa ku jiraba meesha marka barnaamij aan ugu ka dhigay inuu yahay podcast ayaan halkaan ugu talagalay mar labaad soo dhawaada asxaabtii hore mar kale asxaabta nagu cusub haday tahay qof maanta ugu horeysay u yimidba ama uu markii ugu horeysay arko waba dhacaysa hadii rabeedme ayagana waxaan leenahay halkaan waa halkiini waxyaabaha marka ugu waaweyn ee podcastiyada aan soo dhigi doono aad kala socon doontaan iyo waxyaabaha ay tahay hadafkeenu iyo waxyaabaha aan jecelnahay bulshadeena inaan kala qayb qaadano iyo waxyaabaha aan isleenahay baahi ayaa loo qabaa Alle bal uga faa'iideey bulshadaada ayaan hadii mowleedmo halkaan ay u noqon doontaa rug aan la kala xigin wixii markaas qayrana ama wanaago wax tar u la bulshadeena aan soo dhigno waxaa diin doona barnaamijka anigoo ah Mo Cabdi Mo oo Maxamuud ka soo gaabshay Maxamuud Cabdi barnaamijka podcastiyada wuxuu noqon doonaa kan ugu badan in xooga saarno oo aan soo gudbin waxa laga yaabaa asxaabta qaar inay podcast war maxaad ka wada podcast ama ay dadka qaaraysan ogeyn podcast haddaad maqasho waa sidaan aad arkayso codkan iyo waveskan hirarka codka hele dul saaray sometimes ama mararka qaar bila wave baa la sameeyaa podcastigu marka in badan uu ka fudud yahay video editingka ama video in lagu soo gudbiyo xogahana si ka tifatiran ama ka faahfaahsan video ayaa loo soo dhigi karaa podcast marka lagu soo gudbinayo qofkuna markuu podcast ku soo duubayo almost qodobada ama waxyaabo ugu muhiimsan ayuu ka hadlayaa asagoo waliba dul istaagi kara maadaama waqtigu ugu talagalay podcastiga uu yahay waqti dheer maadaama podcastiga loogu talagalay in qofku codka u dhageysto adigoo hawlo haysta adigoo meel fadhiya adigoo qasab ahayn inaad dabcan gacanta ku hayso mobilka oo saas u eegayso sida video marka la diyaarinayo oo kale ama video daawanayso ayaad podcastiga daawan kartaa adigoo dabcan shaahaga soo qaatay meel fadhiya oo sugaya wax qiimo leh oo inaad dhageysato bulshadeenu sideskan ama dhankan oo kale xooga ma saarto balse caalamka hadaa eegto podcastiyadu waxbarashadii lagu soo daray luqadihii lagu bartaa podcastiska meelo kala duwan ayaa podcastigu aad bay muhiim u yihiin oo kaalin mug leh ku jiraan marka laga hadlayo mareegtan Mo Cabdi podcastiyada aan soo dhigi doono codadka ama podcastiyada habaysan ee barnaamijyada aan soo xuli doono waxay noqon doonaan kuwa dabcan waxbarashada qaybaheeda kala duwan baraarujin markay tahay ka falcelin mowduuc waaqici ah oo markaas taagan oo u baahan bulshadu in dhanka jaanibka saxda looga badhaamiyo ama si journali waxa ama si guud ayaan ka wadaay waxa jiraba in loo tuso isbaraarujin bulshada dhexdeeda ah soo gudbin waxyaabo dhalinyarada soo kacaysa muhiim u ah lagama quusan qudooda dadka waaweyn dee waa muhiim ayaguba nolosha kaalin mug leh uga jiraan waxyaabo qoyska waxtar u leh caruurta barbaarinta caruurta waxyaabo aan isleeyahay in badan bulshadayda ama bulshada anigu aan kamid ahay Soomaaliyeed baahibi u qabtaa buugaag ayaan ka marnayn in aan soo duubno dabcan buugaag la soo turjumay waxyaabaha nuxurkooda sheekooyinkii hadii aan si tixaan ah u sameyn karno oo kale
sheekooyinka muhiimka ah ee bulshaduna ay ka qaadanayso aqliyadooda ama IQ-gooda ku siyaadayo gaar ahaan dhalinyarada. waa maadaama mareegtan aan hadda ka hadlo ee Mo Cabdi waxaan eegay dadka mutaabiciinta, dadka followerska, dadka subscribe gareeyay ee soo raacay waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah, age-ka hadda ku jaamacadaha galaya, age-ka kuwa hadda jaamacadaha ka baxaya. xooga marka talooyin aan isleeyahay da'daas qofku haddii uu wax uga qabsado dabcan toosh ayay u noqon doonaan ayaa kamid ah. marka lama kale xigo insha Allah koobkaaga u diyaar garooba markii allaala markii la soo geliyo oo aad istiraahdan war waxba ku soo dhacay. waxaan rajeynayaa inaad markaas oo kale daawataan. sidoo kale podcastgan Mo Cabdi wuxuu noqon doonaa mid ay ka fogtahay cunfiga ama dareenka shakhsiga. arrimuhu waxay u shaqeyn doonaan sida saxda ah, xaqiiqda qaraar ay tahay inaan isu sheegno ayaan isu sheegaynaa. ma ahan qof wax lagu dhiirigelinayo ama qolo gaara lagu raali gelinayo. waa podcast caama oo bulshadu wixii markaas ay ka heli karto wanaaga loogu soo gudbinayo. halkan xaaladaha taagan in laga falceliyo oo kale ayaa muhiim u noqon doonaa Google Digga podcastiga. balse haddii aad xiisayso buugaagta, haddii aad danayso dhageysiga qisooyinka aadan jeclayn in video inta laga soo dhigo animated oo dhaqdhaqaaqaya in badan, halkani waxaan is leeyahay waa hoygaagii aad ka heli lahayd haddii rabbi idmo waxyaabo intaas iyo ka badan ba. xaaladaha taagan inaan ka falcelinaa waa muhiim. bidhaamin iyo soo gudbin buugaag muhiim u ah jiilkeena. marka goolka mareegtan Mo Cabdi family iyo asxaabtiisuba waxaan rajeynayaa inuu horumarkoodu yahay ama hadafkeenu yahay jiil cusub iyo jiho wanaagsan. maadaama ogtihiin baraha bulshada gaar ahaan si guud ah u leeyahay baraha bulshada in Soomaalidu ay yar yihiin sida dhabta dadka uga faa'iideysta, in aan ku yarnahay dadkeena sida waaqica loogu talagalay uga faa'iideysto, balse ay yar yihiin ayadoo ay yar yihiin dadkii waaqica ama sida xaqiiqda ah la rabay inay uga faa'iideystaan. cagsigeeda ay badan yihiin dadka maalayacniga, dadka dabcan waxun haddii aad eegto aan waxbarasho aan ka helin, haddii aad daawato haddii ka tagtaba future-kaaga waxba aan kusoo kordhinayn, waxaas baa maalayacni ah. guud ahaanna waxa aad qabanayso waxay noqonayaan saddex wax markii aad qabato adiga reward ama waxun aad ka helaysid, wax markii aad qabato laga yaabo adigaba inaad dembi samaysid sida hantida inaad qaado, wax raalli aan laga inaad samayso, fulinta ficilo aan wanaagsaneyn oo kale ooba adiga dambiil ku noqonayso adduunka aakhiraba. waa ficilka labaad ee aad adigu adduun ku qaban karto. midka saddexaad waa mid maalayacni ah. laanduu baan cayaaray, laanduu haddaan aad u dheelo maanta oo idil mustaqbalkayga lacag heli maayo. game baan aad u dheelay, gameka marka dhibaato ku geysanaya laakiin dhibaatadiisa aan yarayno. balse maxaad ka helaysaa waa questionka. haddaan game aadan waxba ka helin aad dheelayso maanta dhan oodan waxba lacag ama waxba aad ka sameeyeen sida 90% sida badan waxyaabaha aan dheelno, gameska videodan daawano, waxyaabaha nolosheena aan ku bixino waxba kama helno. way yar yihiin midkaan wax ka baranayno. la yaab naftuna uma dul qaadan karto. midka wanaagga sheegaya waa ka ordaynaa, waxaan aadaynaa wax madadaalo ah. laakiin ma isweydiisay 24 hours haddaad daawanayso wax madadaalo ah inaysan waxba kaa soo gelin moogta, inaad la mid tahay shalay markaad imaanaysay ood shalay subax waagu markuu ku baryayay caaw markaad seexato inta u dhaxaysa haddaad madadaalo daawanaysay berri waxba kama soo qaadayso. waxaa laga yaabaa inaad xasuusato marun qosasho dhal cadayso. barbaa waxay ku leeyihiin maalintan ku samaysanaa way fiican tahay laakiin waqtigaaga oo dhan inaad geliso ma ahan talo fiican. marka shayga aad qabataa waa waxun maalayacni ah, waxun adiga wanaag ku ah sida waxbarasho, koorso qaadashadeed, waana kuwa ugu yar ee caalamka. Soomaali kaliya ma ah, caalamkoo dhan dhalinyaradooda, waayeelkooda, qof inta u fariisto miidiyaha uga faa'iideysto dhanka saxda waa yariya. haddaba mareegtan waxaan rabnaa inaan kusoo gudbino siyaabaha kala duwan isaga yareyn karna at least
waqtiga aad ciida ka badan ciida waqtigan waa ka badan yahay maadaama aad eegto waqti ugu badan waxaan ku qaadanaa madadaalo aan waxba naga soo gelin inooga luma baraha bulshada waxaan ku qaadaa dhigi doonaa mowduucyo kala cayn ah kala caalam ah waliba dhacdooyinka dhacaya caalamka baraarujin aan tooshka kuugu ifin doono waxa iyo waxtarka ay ku leeyihiin dhacdooyinkaasi daqiiqada ahaan ma rajeynayo waqti aad u badan podcastkiga inuu ka qaato wala waan jeclahay podcastkigu inuu wax waxtar leh ku noqdo oodan markaa dhameysato inta ka tagto aadan dhehen waxba soo kordhimay midkani waa at least points midaad ka qoran karto ugu yaraan podcasti ama cod aad ka heli karto waxyaabo niyadaada ama cilmi ahaan ka maqnaa haddaysan ka maqneenna baraarujin kuwa ah way cilmigu waa wax ka maqanood baranaysid iyo wax baraarujin kuwa ah oo hore ogeyd intaas noqon doonta waxaan rajeynayaa inuu noqon dabcan cod loo diyaariyay carruurta yaryar oo dad waaweyn ugu talagalo oo khiyaaro ah way waaqica waan ognahay qof maantay podcast ama cod caynkana dhageysanaya inta iska dhigo telefonka meel saarto dhuuxayo macnaha ama waxa macaan ama wax muhiimka ah ka dambeeya waa qof alleelay aan dhihi karo waa qof weyn haddii xitaa ay jahanusan weyneyn ilaahay qofkaas aqligiisa siyaadiyo adiga daawanaya haddii da'daadu aysan weyneyn xitaa ilaahay ha ku siyaadiyo oo laakiin aad u hurtay ilaa intaan oo daqiiqo oo kale inaad waliba meelahan soo gaarto adigoo isle bal ka gungaar waxa muhiimka ah qofku sheegayo xaqiiqdii dadka sabarka leh waayo dhalinyarada ilmaha yaryarka ayagu ma xiiseeyaan codka saaran waxa qofku ka hadlayo ayaga emoji ama something wax on bombale dheeldheelaya u samee way daawanayaan waayo ayaga hadafkooda wuxuu yahay just entertainment marka adiga maalinkaadi heed yareed waxaanba u maleynayaa inteena badan waagaan yareen inta badan baraha bulshada iyo waxyaabahan aadka u badan maan haysano dhoobaydan ku ciyaari jirnay inta ciid ku shubno qofba waxba ku ciyaari jiray hadii carruurnimadii hadda uma laaban karno waa qisooyin kala duwan oo kala qurux badan marka qof weyn ayaan u diyaarinay barnaamijkan podcastyadan u diyaarin doonaa ilaa aad ogolaado oo aan rajeynayo intooda badan inay yihiin dad aqoon-yahanaa dad waxaan ka hadlayno intooda badan ba horay u ogaa oo keliya uu u noqon doono bidhaamin iyo tusmeyn caama si ka baxsan inaan wax aadan aqoon kale ka soo qaadayo marka aad baan u mahadsantihiin dhalinyarada asxaabta gabdhaha wiilasha ku soo xirmi doona iyo kuwa ku xidhanba halkanba haddii rabbi raali ka noqdo mawduucyadu tixanay noqon doonaan buugaagta haddii aan codayn oo kala sameyno buugaagina soo gudbino waa sameyn doonaa haddii buugaag badan ay noo yaalaan waqtiguna uu nagu yareeyaan kii dadku ay u bataan oo kala dhahno asagaan cod ahaan usoo duubi doonaa waa ku yaryahay dhalinteena ama meel mareegaheena soomaalida meel inta badan codadka buugta inta lasoo qulaaseeyo sheekadii mafhuumkeeda guud dadka loo soo gudbiyo marka insha allah abdi waa ka heli doontaan haddii aad xiisiso casharada IT-ga iyo wax la halmaala insha allah ayaga qudhid waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka soo gudbiyo barnaamijyada arrimaha islaamka ha u badnaadaan iyo arrimaha waaqica ee dunida ka jira ama podcast ahaan aan u soo gudbino ama aan u soo gudbino dhan kale oo video ahaan aan soo sameeyno labadaba channelku uu leeyahay qayb video caadi oo daawan karto barnaamijyo xog ahaan loo koobay haddana video loo saaray barnaamijyada aadka muhiimka u ah ee haddana gaagaaban la isdhihi karo waa idid gareyn karaa waqti oo heli kartaa ayaa inta badan saas loo sameeyaa dad badan wanaagsan jira oo waaxahan ama qaybahan aan hadda anigu wax usoo duubo kale wax usoo duuba dad badan waxa jira wanaagsan oo waqti u waayay inay waa hore waqti caynkan oo kale u soo sameeyaan waan ogahay waxa jira aqoon-yahano jeclaan lahaa inay la wadaagaan sidoo kale marka ayagana waxa rajeenayaa in Ilaahay u fududeeyo wixii qayr oo bulshada la jecel yihiin annagana uu dambi dhaaf alla nooga dhigo juhdiga aan u sameynayno bulshadeena iyo waxyaabaha aan isleenahay bal ku tusa
sidoo kale waxaan u leeyahay dhalinyarada hoobkooda ama rajadoodu tahay inay sameeyaan contentiska waxyaabaha hadda la xiriirasaan dhalinyarada inaan aspects badan dhinacyo badan ka tusino warguushu inta kaliya ma aha way qofku markuu soo hana qaado waxa jira hebel waa youtuber hebel waa saas bulshadeena waxaan rajeynayaa inaan kaliya ugu tilmaamo dhinacyo badan inay leedahay anigu hadda kaliya malihi mareeg YouTube laakiin waxaan ahay qof wax barta rajeynaya inuu noloshiisa wax badan ku soo kordhiyo marka insha Allah inaan hadafkeena aan laga dhigin kaliya inaan YouTuber caan noqdo aan meel u dhadhoofo muhiimad aan laga dhigin muhiimadu ay noqoto in dhalinyaradu ay wax bartaan waxbarashadan baranayno aan ka mira dhalino oo aan caalamka kula tartano aqoon-yahano ka mugweyn video ama wax la halmaala soo saara laakiin kaalin walba aad qaban kartaba bulshada way ku baahan tahay hadaad video soo sameynayso hadii aad diyaaradaha sida hadda dadka horumarinaya caalamka oo kale waa dhalinyaro wax bartay marka inta ugu badan mareegteena Mo Cabdi Janaal ilaahay haduu raali ka noqdo inahaasan xoog ku saari doona ama meelahaasan xoog ka saari doona asxaabta aadka u qiimaha badan waxaan leeyahay soo dhawaada inta ugu horeysay ama podcastiga ugu horeeyay waxaan jeclahay inaan aad noogu dheereyno 20 daqiiqo ka hor aan ku kala tagno dabcan marka podcast la duubayo iska fudud yahay waana muhiim inaad xog badan bulshada soo gudbisaa marka 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo ugu badnaan hadii uusan aad noola weynaan mowduucu aan 30 daqiiqo ka dhigin marka meelahaasaan isleeyahay u diyaari walaalaha kugu xidhan waxaan isleeyahay idin leeyahay idin kaga tagayaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaana Allah